waxaa ka mid ah halkee bay marayaan wadaxaajoodka la doonayo in miiska lagu soo celiyo wadahadalka Mareykanka iyo Iiraan. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan iyo taliyaha ciidamada Pakistan labaduba waxay u safreen Shiinaha iyagoo halka kula hadli doona madaxda dalkaasi arrinta ku saabsan dadaalada nabadda ay ka dhaxwadaan Iiraan iyo Mareykanka. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa diyaaradaha darooniska Xisbullah oo ka oysiisay madaxdii Israa'iil. waxaa la kala qabtay miiska wadaxaajoodka iyagoo kor fadhiya Netanyahu iyo Smotrich. bin Ghafiir dhankiisa ayuu ka caraysan yahay abaanduulaha ciidankuna wuxuu taagan yahay diyaaradaha nuqaati ayaynu ka joognaa waa inaynu Bayruud guriga ku yaalana loo ogolaadaa inaynu duqayno. haddaba maxay sameeyeen Xisbullah? cabaadkooda ayaa baxaya Netanyahu iyo kooxdiisa. haddaba wararkaas xiisaa leh ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana wixii akhbaarada ee cusub ee soo kordha barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada maanta aanu idiin soo gudbin doono haddii Allah wadili ka raali noqdo. taariikhdu waa 25 May. haddaba maxaa soo kordhay intii aynu kala maqnay? haddaba barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wadaxaajoodkii heshiiskii qabyada ahaa oo lagu kala taagnaa xaalkiisu halkee buu maraya. haddaba saacadihii lasoo dhaafay ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay tageen Shiinaha waxayna kulan la qaateen madaxweynaha waddanka Shiinaha. ujeedka ugu weyn ee halka ay u tageen muhiimadiisu waxay tahay in Shiinuhu uu door weyn ka ciyaaro sidii xiisadan ka taagan bariga dhexe loo dhamayn lahaa. haddaba waxaa soo kale wada hadallada ku biiray taliyaha ciidamada Pakistan. labada mas'uul Pakistan waxay aad ugu mashquulsanaayeen maalmahan arrinta ku saabsan wadaxaajoodka. mar walba markay soo dhaweeyaan waxbaa kala fakanay. haddaba marka Shiinuhu door intee leeg ayuu arrinka ka galaa uu ka qaadan karaa. dad badan waxay aaminsan yihiin Shiinuhu dhanka Iiraan inuu wax badan ka soo dabcin karo oo uu tanaasulaad ka keeni karo. laakiin dhanka Mareykanka oo isbedbedel badan iyadoo Israa'iil ay ku daaban tahay Trump kaasaa shaki weyn laga qabaa. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay oo goordhow arrinka laga qoray haddaan idin la wadaago waxaa leeyahay madaxweynaha waddanka Shiinaha ayaa kulan wuxuu la qaatay ra'iisul wasaaraha Pakistan magaalada Bakiin. haddaba warbaahinta rasmiga ee dalka Shiinaha waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madaxweynaha Shiinahu ay markaa wada kulmeen. ra'iisul wasaaraha Pakistan ninka la yiraahdo Shahbaz Sharif ayaa wuxuu ku sugan yahay caasimadda dalka Shiinaha. dhanka kale telefishinka Pakistan ayaa isaguna goordhow sheegay taliyaha ciidanka waddanka Pakistan ninka la yiraahdo Aasim Munir inuu isaguna booqanayo Shiinaha isagoo la socda ra'iisul wasaaraha Shahbaz Sharif. waxaana ay halkaa wada hadallo ay kula qaadanayaan madaxda Shiinaha. waxaana ay ka warbixiyeen kulankaasi in xaaladdu halka hadda ay marayso wadahadallada ay ka dhex wadaan Mareykanka iyo Iiraan iyo in looga baahan yahay Shiinuhu inuu wadahadalladan qayb ka qaato sidii looga miro dhalin lahaa. marka waxaa leeyahay culayska safarka uu leeyahay waxay ku tusaysaa ninka ugu awooda badan Pakistan iyo ra'iisul wasaarihii labadaba way israaceen. waxay ku sugan yihiin Shiinaha. marka culays weyn ra'iisul wasaaraha kaligiisa ma taliyaha kaligiisa ma u fiirsada labadooda oo israaca maxay ka dhigan tahay? waxay ka dhigan tahay Pakistan inaysan waxba u dambeyn. macnaha taliyaha ciidanku waa awoodda ugu weyn Pakistan. ninkaas awood weyn u leeyahay iyo ra'iisul wasaarihii dawladda. marka hawshaasu marka halkaas ay maraysa kullay wixii wada hadalladaas ka soo kordha waa arki doonaa. dhanka kale ninkii Trump ahaa isagu iska wadaa wixii uu soo qorqoray True Socialkiisa
wuxuu leeyahay ittifaaq ama heshiis weyn in la gaaro ama inaan heshiis la gaarin wax ka dhaxeeya male ayuu leeyahay. haddaba markaan tuso telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay Trump wuxuu sheegay heshiis lala galo Iran ama inuu noqdo mid weyn ama inuusan noqonba heshiis markaa la geli karo. waxa uu sheegay inaanay dhici karin maamulkiisu inuu la mid noqdo maamulkii Obama kaasoo uu sheegay in heshiis musiibo ah oo aan wanaagsanayn oo dhanka nuclear-ka ah ay la galeen Iran muddadii uu joogay madaxweyne Obama. ma ujeedaa wuxuu leeyahay tabtii Netanyahu uu u hadlayo kaloo bilaabay wuxuu leeyahay ama heshiis weyn inaan galno ama inaan heshiis iska dhaafno wax ka dhaxeeya maba jiraan. mar rabnuu leeyahay heshiiskii hore dowladii Obama ay la gashay Iran oo kale inaynu galno wuxuuna ku tilmaamay heshiiskaas inuu ahaa mid uu ku sifeeyay inuu ahaa mid musiibo ah oo ahaa kaariso ah wali macnaha heshiis oo musiibo ah ayaa lala galay Iran oo leeyahay. marka hawshaas halkaas maray dhanka kale wali waxaynu ku jirnaa wada xaajoodkii waxa la leeyahay waxa hadda miiska saaran in la dhaqan galiyo xabad joojin 60 maalmood ah si macnaha fursadda wada xaajoodka looga hadlo arinka 60ka maalmood gudahood in lagu shaqeeyo oo wada xaajoodka hadda maxabad joojintii waqtigeedii ayaa dhamaaday marka anytime ama waqti kasta ayaa la isku qaadi karaa. haddaba marka waxaa leeyahay wargeyska la yiraahdo Financial Times wuxuu qorayaa heshiiska Tehran iyo Washington u dhaxeeya in la dheerayn doono xabad joojintiisa muddo 60 maalmood ah. haddaba warbixintan waxaa laga soo xigtay diblomaasiyiin waxaana laga shaqeynayaa Tehran iyo Washington inay marka hore aqbalaan xabad joojin 60 maalmood ah si fursad loo siiyo in wada xaajoodyada si wanaagsan ay u socdaan oo markaa 60ka maalmood ay dhexdhexaadiyaashu u helaan fursad aan walwal lahayn oo ay ku shaqeeyaan. marka wada xaajoodkii horta sheekadiisa halkaas maray wali wax la saxiixay ma jiraan wax xataa waa isku soo dhawaadeen la leeyahay male nin walba meeshiisu taagan yahay. haddaba marka Bakistaaniyiintii waxay isku dayeen inay carabtii iyo soo wadaan waxba waa u shaqeyn weysa. hadda marka waxay isku dayayaan Chinese-ka inay bal wada hadallada soo geliyaan ayaduna waa la arki doonaa wixii ay ka bedesho xaaladda. sheekada kale oo xiisaha leh maanta aad looga hadlayo gaar ahaan warbaahinta Israa'iil waxay tahay nimankii madaxda u ahaa Israa'iil ayaa waxa ay aad ula yaaban yihiin awoodda Xisbullah waliba diyaaradaha droniska ee Xisbullah ay la soo baxday. ciidankii waxay leeyihiin haddaan xalna loo keenin waa soo cararaynaa nimankan ayagoo nacayrsanaya ayaan xuduudka ka soo gudbi doonaa. hadda gudaha ku jirnaa Lubnaan ma ku sii jiri karno. markaasaa shirkii ugu dambeeyay ay amniga isugu yimaadeen oo Netanyahu shir gudoominayay ayaa waxaa la kala qabtaa lagu leeyahay Netanyahu iyo Smotrich waa isku qayliyeen. Smotrich wuxuu leeyahay hal diyaarad hadday soo ridaan kula 10 guriyaan ka duduminaynaa Lubnaaniyiinta diyaarad kale hadday soo ridaan 10 ayagaaba naga joojinay. way u cuntoon mooyay ninkii Netanyahu ah wuxuu yiri annaka xoogaa xal kale aan raadin. marka buuqii dhashay buuqii wuxuu u gudbay waliba kii maaratay bin Ghafiirkii iyo abaanduulihii ciidanka kulligood waxay leeyihiin war waxan wax loo joogi karma haddaan hadda isaga aamusno Xisbullah se u soo socoto guriyeena noogu imaanaysa diyaaradahan waxba waa laga qaadi waayay diyaarada imtixaan la soo baxay nimanka Xisbullah nimanba. haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wargeyska Israa'iil ka soo baxay ee leeyahay Yadcood Ahronood ayaa laga soo xigtay in muran xoog leh uu dhexmaray Netanyahu iyo Smotrich sabab la xiriirta diyaaradaha droniska Xisbullah. wargeysku wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ay markaa aad u murmeen oo gacanta ay isku taagtaageen habeenkii ugu dambeeyay ee wada hadallada ay isugu yimaadeen golaha amniga Israa'iil waxaana shirkaas uu socday muddo 5 saacadood waxa kaliya ee laga hadlayay waxay ahayd khatarta diyaaradaha Xisbullah ee droniska
haddaba Netanyahu ayaa waxaa la sheegay in uu markaa dalbanayo in la dejiyo xaaladda oo ay ka fakaraan qaab kale oo ay isaga difaacaan daroniska halka Smotrich uu soo jeediyay hal daroon hadday soo ridaan 10 guri in laga burburiyo Lubnaaniyiinta marka sheekadaasu iyo dooda iyo faraku taagtaaga iyo murankaas labadaas dhex mareen shirka waxaa kaloo fadhiya ninka la yiraahdo Ben Gvir ninkan markii arrintiisii la qaboojiyay Ben Gvirkii ayaa isaguna qaatay kulligood waxaa dhibaato ku haysa oo cabsi ku haysa daroniska Hezbollah haddaba marka aan idin tuso Ben Gvir wuxuu sheegay Netanyahu waxa waajib ku ah in uu miiska u garaaco sida uu yiri Trump wasiirka amniga Israa'iil Itamar Ben Gvir ayaa wuxuu sheegay in aan marnaba la ogolaan diyaaradaha daroniska ah Netanyahu waxaan ku sheegayaa inaad miiska u garaacdid ninka la yiraahdo Trump waxaana uu sheegay inaad u sheegto inaad si toos ah dagaalka aan u galayno wuxuu leeyahay diyaaradahan daroniska Hezbollah ma samaysan Iran keent marka annagu haduusan ninka Trump dagaalka xataa nala gelin Iran kaligeena aan galno dagaalka waxaas ka boot bakiligooda Iran ku aada iyagoo Mareykan iyo kulli cid kasta la socota waxba laga qaadi waa Iran ninka marka waxay ku tusee karkarka dheriga waxa la yiraahdaa karkarka waxa ka keenay kulaylka dabka ka keenay kulaylka marka baashi waa soo karay nimankan waxa sidoo kale isaguna hadalkii qaatay amniga markii lagu jiray abaanduulaha ciidanka Israa'iil waa ninka ugu sareeya ciidamada wuxuu leeyahay nimankan waxba waa ka qaban weyn awal dagaalku waa idin sheegay koonfurta Lubnaan la isku ceyrsanaa lagu heshiiyay Hezbollah inaysan dadka rayidka meelahooda tagin ayaguna ay koonfurta Lubnaan dhaafin marka ninkan markii si fiican koonfurta Lubnaan looga adkaaday oo ciidanka Israa'iil diyaaradaha daroonka lagu burburiyay wuxuu leeyahay waxaan ka rabnaa Netanyahu inaan noo fasaxdo caasimadda Lubnaan ee Beirut inaan garaacno وبحاول قراءة عشان عاصمة المكان مع عاصمة الجوان هل كان إذا خلط قال بعد ما سكر عشان لما كان بركوا حين ربان إنه علي ساران حسب الله وضد هيدا مساكين وقريو ذي الجوان تلاعيان لين هذا حسب الله حسب الله إنه حيتاجت أنه ضد كينا الشعب كأم الصعون صدق يدين عيدا كينا سانكتك سارنا هذه كذي تعالى هذا مركز تصور بعدنا الجزيرة وحلادها أبان دولها عيدا كإسرائيل وحود ضربانيا ويرر إن لغو قاضو قريوكو يالا مقالة بيروت هذا هيئة ورارك أوفا في إسرائيل أيها شيكتي أبان دولها عيدنك كلن كي أبنغ أوكا قيب قلي إنو عدصدي إن الله فصحو عيدنك إسرائيل إن يويرري كران قريوكو يالا عاصمة لبنان بيروت إيغو أرنكا لوغا جوابيو درونسكا حسب الله فيري مركا وعبسي نكام كلا درنا درونسكا ما بيروت وكسو ريدو يا مايا هل كانوا كسو ريدا ayagu ma shacabkiinay u socdaan oo shacab yahuuda bay laayeen maya askartay beegsanayaan isaldhigyada way adi Beirut ugu socotaa marka meeshaas waxa ka garanay kulaylka la gaarsiin nimanka iyo askarta maalin walba laga qarramsanayo marka diyaaradaha daroniska nimankaas u naftay u keeneen alle hadaba marka xaajo halkaas ay maraysa dhinacyada haday tahay wada xaajoodkii Mareykanka Iran iyo arinta dagaalka Hezbollah iyo Israa'iil qadar xayeysiisha kadib waxaan u gudbaynaa wixii warara